wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland Cabdimajiid Ibraahin Muumin Abaar ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Xariirad odayaasha dhaqanka ee gobolka Sele dhalinyarada haweenweynaha maayirka degmada Xariirad iyo waliba sidoo kale madax dhaqameed kale ayaa si ballaaran uga dhex muuqday soo dhaweynta wasiir ku-xigeenka waxaana markii la soo dhaweeyay ugu horeyntii halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska wuxuuna yiri waxaa farxad weyn ah soo dhaweynta qiimaha leh sharafta leh milgaha leh ee maamuuska leh ay sameeyeen dadka reer Xariirad haddii ay Xariirad awal waxaa kaloo farxad weyn ah ee Xariirad oo daaniga aanay soo dhaweyn Xariirad oo dhammaystiran ay soo dhaweysay taasina magac iyo maamuus gaar ah ayay tahay waanan idinka mahad celinayaa dhammaanteed mana ilaawi doono sida wanaagsan aad ii soo dhaweysay أما هريبا يقولنا قد دماتي إنه وحيد نعي حسب التلاوة ذلك هي كلية يا حرير وانتقرا ما هذا معارضية ميرك لقرا وقت كان حاضر كاو حي الناس ودون وانقلنا لقلي دورا الرجل والفروة دكتين وحرجينا إن هذا أيدتك وصفت عن السود وانقليان وحكران هردعوها هاي وقت بلالن ay iskugu jira dhammaan wasiiradii wasiir ku-xigeenada agaasimayaashii guud iyo dhammaan wixii masab iyo magac ku hayay ama xil ka hayay gobolada galbeedka Somaliland gobolada Sele iyo Awdal mas'uuliyiintoodii oo dhammaystiran baa inagu soo foolan waxaan hordhac u ahay wafdigaasi sidaan ugu soo dhaweyn lahayn waxaan rajaynayaa salaasada ama arbacada inay midkood inoo yimaadaan sida fiican ee magaca leh ii soo dhaweysay si ka wanaagsan oo milgale inaad u soo dhaweyn doontaan ma rajaynayaa waana markii ugu horeysay ee qof reer Xariirada oo degmadiisa iyo deegaankiisa jooga halkan laga dhex qaado taasina waxay macno gaar ah inooga tahay qofku waxa uu ogaanayaa duruuftii iyo baahidii iyo dhibaatadii jirta qofka halkan laga dhex magacaaba waxa uu ogaanayaa dhibaatadii iyo duruuftii iyo baahidii halkan taalloo yahay waxaan isleeyahay muddadii 5 bilood ayay joogay walow aanan awood badan samaynin haddana meel kasta oo dadkeena dantiisa ay ku xirnayd ama meel kasta oo cid wax kaga xidhnaayeen inaan dadaal badan ku dadaalo sidii aan uga soo fujin lahaa waxaan kaloo xaggan hal ugu celiyaan dhammaan reer Xariirad oday sheekh ilmo ayuu dumar caruur dadka maanta allaga iyo waxaan hormood u nahay wafdi ballaaran oo ka socda gobolka Awdal oo wasiiro iyo agaasimayaal iyo cilmi kusoo dhawo degmadaadii gacmalkooda kusoo dhaweynaya marka hore waftiga ogaado ee wasiir ku-xigeenku waxuu horyo u yahay wasiiradii gobolka Awdal iyo Sele oo laba qaybood isu qaybiyey oo kormeer ku soo mari doona gobolkooda si ay ugu hawl galaan bulshada baahiyaha jira iyo bulshada usatay maanta gobolka Sele waxaa matalaya laba wasiir oo dheeraa waxaa la oran karaa waa waqtiga dhalinyarada inshallah markayta laga yimaado kolley wasiirku inshallah wuxuu daafuri doonaa caalamihii xisbiga kulmiye kolley dhammaan dadka reer Xariirad kulligan kulmiye aynu nahay waxaan leenahay xisbiga jahligii dishay daryeel caafimaad baxshow bulshada dumar iyo caruur aday kuu dabaaldegeen ducay kuu hireynayaan dadkiisana waxay dhaheen annagoo isku duubanba kulmiyaa lagu beersado inay doortaan mar kale ayay u diyaariyeen waxuu ah waa macallin ka mida macallimiintii deegaankii u joogay laga magacaabay isagoo weliba shaqo deegaan u haya bulshadii iyo qarankii u haya laga dhex magacaabay wasiiradii hore noo magacaabi jirna iyo goobta ay deganaayeen baa Hargeysa ayadoo Hargeysa baa laga dhex magacaabi jiray wasiirkeena maanta waxa laga dhex magacaabay isagoo goobta uu joogay shaqada ka hayay jooga baa laga dhex magacaabay